Rosar haddaad hore ila joogtay welcome back another video koobkaada shaa soo qaado waayo Chelsea ayaa laga Se badiyay Todibollo ha halkaan ku sistema jiri doonaa kwete bas. insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقو عبد العاقني جنرال كداو نزيد وعاقني جنرال أرسنال 3 تشيلسي 1. هذا نوع عزبتاي سادو سبسكرايب كلوسر هذا دوري اللي جوكتي ويلكم باك another فيديو كوكا هذا شاء سوق هذا وايو تشيلسي أيا لقبدي عاو هكذا كوجي جري دونا إن شاء الله يوحي كقلدنا تشيلسي كوزو دوال المقالك واي هاي كوزو دوال المقالك عاو تشيلسي فوتبول كلاب وحي أدي أرسنال أيوغو إنay geli karaan kaalinta labaad kadib ciyaarka horeysay ay wada ciyaareen Leicester City Man United kadibna baraaji ku dhamaatay 2 gool kadib Chelsea waxaa ka khasaaray fursad weyn oo qaali ahayd ay ku geli kareen kaalinta labaad balse maxay kugu taalaay caawa way iska khasaariyeen Janiskaas waa markii koowaad maan ay Chelsea iska khasaariso Janiskaas kulankii Everton kaalinta koowaad ay geli lahaayeen kulankii Wolves kaalinta labaad ayay geli lahaayeen balse way iska khasaariyeen labada Janisba caawana waa markii saddexaad ee away loogu soo badinayo Chelsea markii loo fiiriyo kooxaha kale markay ciyaarayaan hore u soo ciyaarayna kale ay leeyihiin Chelsea inay qaataan ama qaadan karaan waxaasna waxaan dhihi karnaa waa tababar xumo ama management xumo meesha ka jirto Frank Lampard ma bahaysiyaba ciyaartooy iyo asiga tactikadiisaba wax u shaqeynaya ma lahan waxaa is leenahayba kuma talagelisid miya kulankan you have to win kulankan waxaa u baahan tahay inaad badisid ciyaartooyda waa lagu soo qayliyaa dabada bisbeer laga soo mariyaa si ay u badiyaan Janiska inaad ka qaadatid waaye okay لأن كانوا يكسرون قلنا مانديغو تياغو سيلفا زوما ريس جيمس أند بن جويل على بدو سولابتن نيكولا كانتي كوفيتيج أند ميسن مان قربكم بدي وحا عياري تيم فانا قربكم بدي وحا عياري بوليسيك أنا فورين وحا لسوكي تيم أبراهام لأن كان وحوها لأن كي كلن كي وسيام لوغو بدي اي بورنكاها بلسي كلن كان وحدو بانيد لندن ديربي بوكسين داي إن كسو تلقشا كوبات هذا أما كوبات هورو لو بدايو جلسة أرسنال محي سمي ماتي جلسة ويسكي ساقين وحيو قلادين أرسنال إن دغدغاق سميسو أرسنال إن كوبات سميسو kadib waa la soo xarooday penalty Reece James gadaal ka taabtay daas penalty maalmahanba far iyo waxa kubadda sanadka lagu ciyaarayba haddii boxka nin ku taabato ama wejiga xataa ka taabato oo isku dhamaatay waa penalty 1-0 Arsenal la kaset ayaa ku turtay ciyaartu u socotay goolkii labaad Arsenal free kick ayaa Chelsea laga dhaliyay 2 gool iyo waxba half time la maray ciyaarta Chelsea ayadoo sameeyeen wax shuda on target ama wax yaraade ama shoot ama isku talagal ama ay gool ku dambeeyeenba half time la soo labtay Chelsea waxay sameysay laba degdeg ah ama laba bedel oo degdeg ah waxay soo geliyeen garoonka Jorginho waxa lagu bedelay Kovacic waxa la soo geliyay Adoy waxa lagu bedelay Timo Werner Aaron Stan waxa loo bedelay Timo Werner ma ahayn nin maantay u fiican tahay ama sida u ciyaarayba garbaha kubadiisii lagu yaqaanay ama lagu soo iibsaday ma ahayn waayo ninka looma soo iibin garab inuu ka ciyaaro ninka waxa loo soo iibin inuu ka ciyaaro striker asigoo Adoy haysto kulan ciyaari karo Timo Werner foran Adoy iyo Pulisic ayuu wuxuu ciyaarsiiyay Timo Werner garab كامل لبعض تيم فانا أضيع لقوا بدلي again جورجينيو كوفيتيج كوباد من هرو وضعي ما بالكني بقى نقدر نسيع لنا جورجينيو أيها كروك لسوق لي قول كيس دعات جورجينيو صوت هاك قلي كرو أما قريب كرو كوباد أيها غير لي أنت لقى صوب بربري كده من الساكن أيها كتورت قول كيس دعات أرسنال تريني داون جلسي قول هلال أبراهام أقول لي كده من بنالتي هلال يعني ما تغنينه نكلمان وجورجينيو واسكت تغنين جلسي نك بنالتي كتوراي وتيم فانا بس تيم فانا كروك كمجرد waxaa u tuuray ninkii Jorginho ahaa asigane kubad yar dhac dhab waa la iska qabsaday okay maxaa naga qaldanaa caawada Chelsea maxaa caawa ka qaldanaa lineup-ka sidaas lagu soo galay garoonka wax pressure ama attack ma lahayn Chelsea waa la fariistay dhaqdhaqaaq ma jiro Reece James loo baasaa soo cross hope mactara saacaas waa la soo cross goal rajanina taasna jiru ma ciyaaraya meesha maxaa laga cross Tammy Abraham madax inuu ku dhaliyo waa habeenkii xal ahay oo tagay Frank Lampard ciyaalkan Jarmalka la soo iibiyay waxaan ka baqaynaa mustaqbal xumo ku dhacdo ay waayaan Europe inay u ciyaaraan wadankooda Jarmalka waayo haddii laga soo gaarin oo macallin kale oo Chelsea loo dhiibin nimankan waa ku dayeen nimankan dambe jiray ama niman Jarmal soo baxay oo Chelsea u saxiixay ayaa adduunka lagu sheekaysan doonaa waayo markuu ka hormariyo Abraham inuu striker dhigo Timo Werner garab geeyo Mason Mount asigoo garoon ku jiro Kai Havertz lacag badan laga soo bixiyay binti la fadhiisiyo waa iska fahmi kartaa calanka hoos ayaa ugu jira Lampard waa England u xiran yahay ilmahaas Ingiriiska inuu rabo inuu kor u soo saaro Chelsea dhan 8 daqiiqo markay marisay hal shoot yaa gam mataqaana waa Captain America Pulisic goalkeeper-ka Arsenal one shot target Arsenal ma helin maanta Chelsea wax shoot la yiraahdo Chelsea ma aysan ku ridin Arsenal wala soo koraysa hadda kubadii ay Chelsea dhalisay Tammy Abraham maxamed ku dhaliyay hatta lugtiis kuma dhalin marka waxaa dhihi karnaa one shot target ay Chelsea samaysay Frank Lampard
wuxuu u baahan yahay shaki aab iga jiroba shahaadada uu wato waa shahaadadii championshipka premier league uma dhigmato wuxuu u baahan yahay inuu ku laabto championshipkiisa derby u baahan derby maalmahan waa iska dhaadhacaysaa marka waxay u baahan tahay ninkaas inuu ku laabto oo meeshaas haddana kasoo dhiso waayo clubkan waa ka wen yahay waan ognahay legend waaye waan ognahay top scoraha premier league midfieldka uu yahay balse macalimo markay imaato uma malaynayo Chelsea inuu u qaadi doono koob waayo waxaa loogu badinaa mar waliba maamul xumadiisa iyo wuxuu bedelayo iyo ciduu soo gelinayo midnaba ma garanayo Frank Lampard caawa ka bilaabato waxaa saaran pressure waayo kulankii Everton Wolves iyo West Ham iyo Arsenal caawa Monday night waxay ciyaari doonaan Aston Villa kulanka xigana waa Manchester City intaas kulamada isku dhadhow waxaa la dhahaa kulamada oo ilaa Christmaska laga gaarayo Boxing Day-da kulamada isku xiga la dhahaa Premier League lagu kala faa'iideysto wuxuu qasaariyay 9 dhibcood wuxuu qaatay 3 dhibcood oo only West Ham ciyaarta West Ham waxay ahayd kulan iska boring ah afartii kulan Chelsea soo dhaafay hal system oo Lampard ku ciyaaray waa cross Ben Chilwell soo cross Reece James soo cross that's it ninkii loo cross ilaa xataa Giroud waaye Ben Chilwell fadhiya lamaba keenin garoonka maanta anoo rajaynayo markii 60 daqiiqo maraysay inuu Giroud la soo geliyo Giroud isku leeyahay wuu soo socday iska bariis Allah Tammy Abraham ma madax ka sugaynaa ma siino gool loo dhaliyo haddii Chelsea kulanka soo socda ee Aston Villa ila ciyaaraya Monday night hadoona wax badan iska bedelay Frank Lampard cadaadiskiisa tima Frank Lampard waxa la leeyahay out ninkii Ibrahimovic nin qosla maahan nin yaqaan maahan ninkan waa legend adigoo og Mateo inuu Champions League soo qaaday ayaa la yiri dawataas Anthony Conte asigoo Premier League ku guuleystay ayaa la yiri dawataas Sarri asigoo Europa League qaaday ayaa la yiri dawataas Frank Lampard oo macallin Championship iska ah maxaa ka filaysaa inuu noqdo Arsenal waxa leenahay caawa ambalyo Arsenal waxay ahaayeen niman ku soo talagalay inay badiyaan ay dhibcooda qaataan Arsenal uma fiirin waxa ku jirtiin 15ka waxay u dagaalameen 3 pointiga big gameka London derby say ku qaadataan wiliba mid ogaal David Luiz Gabriel Willian Aubameyang ragii waaweynay Arsenal even Pepe bin Jalfrisie oo la ka sad saddex ayaa laga daba dhigay marka waad arki kartaa waa ciyaar yar shaqo soo tagay xoogsanayo Bellerin waxaan isdhahay maantay bolisiga jabsan doono ama si loo raacdeynayo waa la daalin doonaa awa Belisik garabka xaga Timo Werner nacal soo saji Bellerin wuxuu noqon qodobba kaafugi Brazilian inta video ku soo gabagabeena hadaan lagu cusub tahay subscribe noo saar la gaado noo muhiim haddii aad Arsenal fan tahay waxaan ku leenahay ambalyo caawa Arsenal way badiyaan komitigaada waa u baahanaa caawa kale asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh